waxaan maxaa la oran jirayna bal soo galaniyo garan mayno indhahaasan ha ka liita cadhawgeedniyo qiimahan ka xiranaya sidan dadku loo hadli karo irsoolkan ka xiranaya waxaan nooc loo isticmaalaa garan mayno waxaan ka fursan weynaba soo geliyay بسم الله البيش ما سوق شانيو هذا روحي ورسنجليو سوق روحي ورسنجليو عندي كلا اسكا مغناطو هذا سوق روحي ورسنجليو هذا افكي ذيك كلا يسوي ذي شركري وحي جروب بدا سناق هيلان bari ku share kareeyo dadkaasi ku socdaan wixii kala iska daayay iska dhaafaaday rabo soo bato markaas aan bilaabayaa mowduuc xasaasi ah ka hadlayaa waligii leef ma soo galin arrin aan qaadan waayo ugu khasabtay iyadoo ay rabadaan tahay dadku iska cibaadeysanayaan la sooman yahay bisana aan ka fursan waayo inaan ka hadlo bay soo gelisay habeen dambaan islaa ka hadal bustiga oo soo dhigay habeen dambaan islaa ka hadal isna waa joog waayniyo cadhawgeed bismillah alga joker bilan arkaa oo ku salaamay joker bilow soo gal wixii reer xingoloola ma ahay warsangali oo dhan soo galeniyo arrin muhiim ah ka hadlayaa dadkan life ka raadsada adeer gacaliga qotay daruuriga baahi arrin aan ka fursan waayay bay soo galisay caawa laakiin arrin aan qaadan waayay wixii beesha warsangali soo gala wixii kale iska maqnaada adeer soo galinay waxba ka faa'iido maysaane halkan horta waxaan ka dirayaa tacsi tiiraanyale oo aan u dirayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka Sanaag galbeedka gobolka Bari degta Highland tacsidaas oo ah Sidiiq Maxamed Jaamac oo ku magac dheeray Jaanamana shalay 9 bishii shalay ahayd baan maray taariikhda ay ugu lunsan tahay ay ku dileen qolo burcada Maria Calasa Moriana ay ku dileen magaalada Boosaaso isagoo sooman ilaahay jannadii firdawsaha geeyo qabrigana ha waasiyo bil Ramadaan buu ninkaasi geeriyooday ilaahay qabriga ha waasiyo يرهلا عندها حنونية عراوغد جوكر عشي ما سنتهاي صاحب سودان ولا هلا يارنتها شركري نيو دود كواس سيحدن بان سنين يوم حل دمان سوق لك وحنا إلهي قبرك هو واسعيو جنة فردوسنا هجيو سيدي محمد جامع
وشلي حق درر لوgu dilay magaalada Boosaaso sidiiq anagu waxaan ahayn rag muddo dheer dhulku soo wada noolaa xaalad adag soo wada maray misna wuxuu ahaa nin aad u dabeecad wanaagsan aad u nasabiyad fiican hawlaha dhibeed iyo nin macnaha waxaan dhaho ma garan karayniyo ninkaas wuxuu ahaa nin ilaah dee gacan ka xaq daran baa shalay dishay horta isaga waxaan leenahay ilaahay dadkii uu ka geeriyooday eheladii iyo qaraabadii ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo qabrigan ilaahay waa wasiiyo indhahan dadka weyn laga qariyaniyo indhahani way casaadeen laba habeen ma seexan si ninkaasi u baxay الموضوعان bilaabane ma soo gashaaniyo la yaab maayo nin looga bartay life iyo inuu macnaha ka hadlo arrimaha meehi ma garatay hadaan aqoon dee baalkana ma aqaan si loo galo وسو حنبوباي هل سوقل نيو رين مهيبان كهادلي ورسنغريو سوقل نيو سنغريو سوقل نيو رين مهيبان كهادلينا عبد فارح شردون ساعد لجن واك سلامي arrin muhiim ah ka Cabdirahmaan Figanti war asxaabtu soo galeysaniyo arweyn salaamaniyo alla sheer garay wixii reerka ah sheer gareeyeen wixii ursan galiya ha sheer gareeyeen arrintaaniyo wixii kala adeer iska maqnaada uma baahnina adeer gacali wixii ursan galiya noo sheer gareeyeen anaga soo bato mar roo bilaabeynaa haloo duceeyo wiilka yar ee Mooryaanta ku dishay مريان تكون شيء قال هذا بوسو هذه أطباق وحنا سيد محمد شامع ما قاعد يراي كان منا أطباق وحنا كان كحقتنا بكل شيء قال هذا بوسو عبد فارح إلى هذا رجع لي قلبي قاك السلام المجاهدين توهوا لي تستاهل وكهل لنا ولقي اللي في مسوق ما بقى قانا عاو ولا بري والله بل waxaan ku yiri aduu magac baa ka haree meesha doontaan la aadeen nabara aan golle aan canaasiirta ka caynay waraad baan salaanta islaamka ku salaamay 134 waxa laga hadlayaa sidiiq waa laga hadlayaa niyo garab kaygi midig baa baxay aad baan waxnahay la soo bato bilaabeynaa aad baan idin salaamay mujtamaca sheer gareeya wixii warsangeli ku sheer gareeya ku sheer gareeya waxa kala cid kale ku sheer gareynina habeen daman soo gali lahaay waladi waay waxaan sir ciriyo dhul meesha doonta ka cabtay gal qorsho habeen dam mooha maalintii wala sooman yahay lagama hadli karo soo bata oo bilaabanayna mar dhowe daaleyno
aad baa idin wada salaamaya, aad baa idin wada salaamaya. La soo bato waa bilaabanayna mar dhow. alla sheer garay hibesh maxamuud hartiya wixii besh moora saanta ha sheer gareeyeen ha isgaarsiiyeen wixii taga gobolka Sanaag galbeedka gobolka Bari Highland ha sheer gareeyeen arrin muhiim ah ka hadlaynaa alla sheer gareeyo alla isgaarsiiyo mar dhow bilaabanayna insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. markooda Ilaahay waa mahadle. rabadaanta Ilaahay inoogu dhamaysiiyo nabad qab. rabadaanteeda Ilaahay inay gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna. ninkaan inuu wada ducayno hadii Alle idmo Ilaahay ninka jannada firdawsaha geeyo. waxaan ka hadlayaa marka ay mawduucan u soo laabanay arinta Sida Maxamed Jaamac jaana maana oo shalay lagu dilay baan filayaa 9kii bishii lagu dilay magaalada Boosaaso isagoo xaafadiisa hurda. waxaan u sheegayaa oo la hadlayaa beesha Warsangeli ee digta Boosaaso ee wixii loo gaaro 2009kii ilaa maanta xasuuq ku socdo oo ay ku hayaan dad deegaanka kula diga kaaga tamar badnayn kaaga xiniya badnayn adeer sheer gareey life kama aqaan si loo galay caray soo galsiisay sheer gareey aad wax khaldan yihiin iga raali ahaada. aad iyo aad baan uga xumahay horta Sidiiq Maxamed Jaamac. waxaan ka hadlayaa arinta Sidiiq waxa dilay niman Marya Calas dilay Rabadaan isagoo sooman oo gurigiisii jooga oo hurda oo safar ka soo galay. waxa dilay niman Mooriyaana nimankaas oo reera nimankaasi muddo aad u badan oo laga soo wareegay dhowr 10 sano beesha Warsangeli waxay ku hayeen xasuuq way ku hayeen. xasuuqaas aan loo meeldiin. xasuuqa waxa kamid ah in magaalooyin dhisan la baabiyay taasoo ah in magaalada ugu barwaaqada badneed Puntland gaar ahaan oo la soo waayay. xasuuqaas oo keenay in magaalooyin lagu baabiyo. waxaan leeyahay hore Dubays adeer loo laayay oo al-shabaab iyo wax la inaga badan yahay oo nimanka ma jirteen inaga badan yihiin adeer lagu laayay ma garatay. waxaan jirteen isma saarnee nimanka Maxamuud Saleebaan ma garatay. adeer han figa inaga ku dhimana inaga ku laana afurur baa ciidamadeena jooga galgala joogan ma garatay. waxa dhulka jooga ee ku dayacan ee habeenan seexan ee qaraxyada loo dhigo waa ciidanka Warsangeli ma garatay. misana Boosaaso lagu maalin walba lagu shaambadaynaya adaana al-shabaab hortaagan oo habeen iyo maalin difaaciya meel aan lagu dirsan. horta nimanka Dubays iyo gaashaanbuureed ee galgala difaaca ka haya waxaan idin leeyahay adeer waliba Dubays adeer galgala iskaga soo baxay magaaladiina burburtay Boosaaso adeer waa la wada leeyahay. hartay ka burburaysaa adeer ka burburi mayso ma garat. nimanka Warsangeli waxaan leeyahay horta adeer gacli Dubays galgala adeer difaacinina afuruna difaacinina maalin walba 8 iyo 7 kaga dhiman maayaane. waxa soo galiya caawo wax yar maaha. waxaan ka cadhooday oo aan ka xumahay ninka miskiinka ee sooman ee Ilaahay yaqaan ee safarka ka soo galay ee Marya Calas tuugta ee dawladaysan ay ku direen magaalada Boosaaso. waxa saadar wax la qaadanayo maaha. beesha Aadan Saciid waxaan u sheegayaa oo sida u kala sareysaa loo guraabaa ilaadeer. ninkiin waxa dilay harqaan la dilay Usmaan Maxamuud oo Boosaaso harqaan la ku haysan jiray wallaahi billahi wa tallaahi hadda ma garatay. dani baa magacaabay taliya qaybad baa loo magac shuruuc ma yaqaan. Marya Calas wuxuu ka soo urursaday gobolka Bari Karkaar iyo dhulka wuxuu adigu kugu dawladeynaya shuruuc ma yaqaanaan. qofkii madaxa taaga xabad bay ku dhifanayaan. adeer waxaan idin lahaan waa Aadan Saciid orto beesha Warsangeli baan la hadlayaa. difaac caanaha keenta magaalada Boosaaso baalada digtaadeer oo ariga ku daaqa ma garatay. magaaladii aad difaacaysid oo u dhimanaysid oo miinadu maalin walba adeer
kugu guranayso afurur iyo marajo iyo galgala misana in wiilashaadii xaqdarro loogu laayo boosaaso wax isqabata maaha ma garata shirgareeyna ala shidaan ku yaale adeer furinta soo baneeya galgala hadaa soo baneysaan galgala oo baabaaday maxaa difaac kaga jirtaan soo baneeya galgala boosaas hal isugu yimaado hal la wada dhadhamiyo bahash adeer maxamuud salamaan inay cunaan xabxab iyo tufaax adiguna galgala iyo afur iyo marajo difaac ka haysid war waxaas wax xaq ah iyo wax la qaadanayo midna maaha ma garatay waxaan idin kula talinayaa niyo oo aan idinku waaninayaa waa mid dawrsin gali horta taa weeye adeer iskaga soo baxa difaaca cid aad difaacaysaan ma jirto maalin walba 70 bayd kaga dhimata wax allaale wax garowey iyo gaalkacyo qardhaha la isugu tago wiilashiina hor taagantiin oo cara hayso wax al-shabaab la dhaho ma jirto wiilashiina oo ka xanaaqay cadaalad darrada ka jirta boosaaso iyo dhulkeena baa wiilashiina ka tageen al-shabaabna faroola ku shaambadeeyay manjiyahan baa ogeedan arrinteeda adeer gacaliya wiilashiina waxaa leeyahay iskaga soo baxa difaaca ku jirtaan iskaga soo baxa waa midda labaad Sidiq Maxamed Jaac baan ka hadlayaa Sidiq Jaana mana adeer waxa lagu dilay waa xaqdarradaasina nin maxamuud salaamaana maanta dil lahaa sida kuma jirteen la iskamana nacnacleeyeen adeer halka hadda ma garatay waxbay ka qaban lahaayeen waxaan idin leeyahay adeer beesha aadan siciidow wiilkiina xaqdarrada lagu dilay nacala shidaan ku yaala baran baader was waashaane laangaab dheebaatin hadeedan Sidiq Jaana mana u aarin oo Mariya Calasto oo taharqaan laha Ismaan Maxamuud ee bahgareen aydan uga aarin hooyadin baa lawsaa dib haw sheekeynina dib ma garatay warsangalina waxaan leeyahay adeer meesha iska qaada wax dhintay baatiine waradeer dad laatiin oo dad le waa la dhintaa adeer gacaliya raggu waa dhintaa sharaf ku dhinta inta maalin walba wiilkiina lagu dili lahaa isagoo hurdo adeer gacaliya ma uu si xiran tahay aan garan fiinaha daasidan adeer dhinta adeer gacaliya oo xaq ku dhinta adeer gacaliya ma jirteen walaalaynu nahay iyo wax aynu nahay ilmaadeed iyo wax aynu nahay waliba maxamuud salamaan waxa adeer gacaliya wax qormo ma dhulhaanta kaga tagay oo tukarraq iyo door keenay adeer gacaliya nimanka ay door baa inta doona dhaama marka anigu waxaan leeyahay kiin iyo door baa u diideen inta uu ku amaanaya boosaaso in wiilashina lagu laayo in la idin yiraahdo waxa rutmay maqlayaan dadkan niyo arday maqlaysan ha soo qorniyo cunaha xanuun iyo maqal maaye xubin oran kar maaye cunahaas ay kala go'an waxaan idin leeyahay adeer singaliyo adeer booso daan baa digtaan afar degmaa laga dhigay saddex mitirtaan baa qaatay xabada disha la siiyay taasa iyo ay taagan tahay bacaruurihiina la leynaya oo waliba inuu gumeed ku dhalay aan nasabka ahayn ee xoriyeesha ee la qarameeyay una ka tacsiyaday wiilka la dilay dadka adeer waa la dilaa weligeed baa ragistilay laakiinse kama una tacsiyadayn intuu dilay una ka tacsiyadayn taas waxay ku tusinaysaa raganimo darrada iyo macnaha caaqiba darrada haysata beesha warsangali adeer beesha warsangali waxaan leeyahay boosu waa la wada degaa daan baa degtaa daanta ugu quruxda badan baa degtaa ma garatay boosaaso waa la wada degaa daanta ugu quruxda badan baa degtaa cali salaamaana 19 cali ku habsay meesha la yiraahdo dubaysiiyay oo bari qandalo ugu sugayso qandala iyo balidin baa la yiri dhinac aad degnayd isagoo oo shaydaan midharu kugu dartay baa la yiri badin cilsiyi oo la yiri idinka xaafada cali salaamaan baale waraad rusingali waxaan leeyahay dadnimo darradan iyo caaqiba darradan iyo tayalaantan allaahi billaahi tallaahi baan ku yiri wallahi soo liilay maaha wallahi godkina biyadu ku galiya adeer dhooba lagu weeraray baarlamaanka aad ka hadli weydeen boosa afar xafadood laga dhigay aad ka hadli weydeen wiil yaro Soomaan baa shalay intii la diro laga tacsiideen waayay oo hadda in qof dhintay aan laga hadlin
وأمسنتين dadna badaradiina warniyo dad abuuran noqda oo dad wax galan noqda adeer nacala shaydaan ku yaale nasamatiidin nasabadna malihidin aadan saciid waxaan leeyahay dhabayico adeer gacliya waa la'aanaysaan oo afur baa ku dhamaateen oo t-shirt kale la idin soo xidhay aku dhamaateen oo kiid ka dhaqdhaqaaqay lidinkaga dilay yaa difaacaysan maalinta afur leedin ku dhameynayay nimanka wiilashiina maanta iyagoo Soomaali hurdal baa ku difaacaysan garowe booso maxaa hafiga idin taagay warsangaliyo hadaad caaqibad leedihiin maxaa hanfiga galgalay afur idin taagay yaa difaacaysan ma ariyihiin guriyihiin kala aadaan boosaaso adeer sanaag bacid ka difaacdaan al-shabaab sanaag kama difaacdaan boosaasa ka difaacdaan boos maxay boosaaso haddii la yiri waxba idin kuma lihidin maxaa idinka yaala ma fulinta barnaysaan ama iska deysaan boosaaso haddii wiilashiina lagu laynayo oo adeer gacliya iyagoo Soomaali laynayo oo aan laga tacsiyadaynayn nasabad hadaa leedihiin waryaar warsangaliyo waxaan idin leeyahay war adeer sheer gareey wixii warsangaliyo gruubada ku sheer gareey warsangaliyo waxaan idin leeyahay adeer gacliye wiilka yar ee xaqdarrada lagu dilay ee bisha Ramadaan isagoo Sooman miskiinka ahaa lagu dilay adeer waxaan idin leeyahay u soo aara aadan saciidow wiilka yar u soo aara haddii kale nasabada ka baxa sida warsangaliyo loo laayaba waa taqaanaan gunya guntu dhashay kullu waa dhimanaysaane adeer gacliye nina ajashiisha ma dhaafiyo aadan saciidow nina ajashiisa ma dhaafiyo beesha aadan saciid waxaan leeyahay adeer gacliya mooryaanta taliya qaybeedka boosaaso wato baa idin laayay wiilkiinana dilay kana tacsiideen waayay ismaan maxamed aadan saciidow adeer rag isleeg waatiin taran hadday noqoto iyo taya hadday noqotoba wiilkiinni la dilay u soo aara ama dirciye xidha nacala diidin dhishi ku yaale wax la caayo oo nasabad aan lahayn baatiine wallaahi billaahi tallaahi baan ku yiri caaw hadaan joogo dhiig baan ugu ilaa wiilka Sidiq Maxamed Jaan manaa inaanu saaxiibnahay buu ahaa muddo dheer dhul aan wada soconay beelo wada joognay waqti badan soo wada qaadanay nin islaam insaana nasabad le macquula guurti abuha ilaahay naarti jahannaba ha ka xafido jannada ilaahay geeyo firdawsa qabrigana ilaahay oo waasiyo ilaahay su'aasha oo fududeeyo laakiin saadan saciid waxaan idin sheegayaa gudnimo weydin kow aruurtiina Soomaali in lagu laayo magaalada Booso idinku hoganaya gudnimo weydin kow leefkana ku si dheeraado ma rabo beesha aadan saciid waxaan leeyahay adeer wiilka yar ee Marya Calastu dishay ee beesha Ismaan Maxamuud dishay ee Mooryaanka taliya qaybeedka dilay waxaan idin leeyahay si degdeg ah uga jawaaba haddii kala dirciye xidha ruuxii warsangaliya leefka hal la gaarsiyo adeer anagu leef ma gallo leefna weliga ma soo galin laakiin se waxa aan ka xumaad waxa weeye Sidiq Maxamed Jaamac arintiisa Sidiq Maxamed Jaamac nin aan saaxiib nahay waha nin wanaagsan buu ahaa nin garab beesha warsangali ka baxay waha beesha aan saciid ka baxay waha Sidiq waxaan leeyahay hallo aaro mooryaanka harqaanlaha ee ninka miskiinka dilayna gacan bir ah lagu qabto anigu weyn ogahay warsangali weyn ogahay beesha aan saciid weyn ogahay ninka hadii la qabto mag ba qaadanaysan هذا ردينا سبب كجرتو ويلكي نو آرا والله بالله والله والله إلهي وإذا كقبضانيسا نينا أتشي سما دافين كرتان نينا انتو نولانا يوم هايسان أكيسي الدنيا ذا نيهو مقع بالوجه شوغا واري ميرس بسم الله أطبعنا وحما هاي وحبا يقصر دحك على يلنبري waxaan leeyahay aan saciidow adeer wiilka si degdeg uga jawaaba xaq darrada leedinku hayona beesha warsangali si degdeg adeer uga jawaaba al-shabaab weydinka tuug weydinka car waxa ay sheegtaan car
haddaad igu soo qoro commentiga nin maxamuud salaamaana oo boos al-shabaab loo haysto nin maxamuud salaamaana oo argixiso loo haysto ii sheegay idinku dhul barafaan joognaa misna saas dhidisku nooga daaya ii sheegamiyo ma jiro dee sheegi maysaan nin maxamuud salaamaana oo al-shabaab loo haysto ma jiro nin maxamuud salaamaana oo dambiile ma jiro nin maxamuud salaamaana oo dambi cid ka gala ma jiro waa wada xaaji waa wada islaan wiilasha yaryarna intii lagu laayo guryahooda baan laga tacsiyadeyneen oo aan wax laga oraneyn oo aan laga hadlayn oo misna aamusantiin nacalaan caladiina dhisho ku yaala aruursan galiga waxaan idin leeyahay adeer nimanka uga guura gobolka waa looga guura weligeed ba dhul la iska qaadiyey ama gobolka boosaas waa laba daamood wariyaa daanta galbeed oo dhan baa degtaa cashuurta laga qaadaa hooyooyinka bardhada gadanaya adeer laga qaadaa cashuurtana garow waa lagu cunaa wiilashaadii galgala badhufays ku jiraan sii socodkana miinaa la kacda oo 10 baa dhinta soo socodkana miinaa la kacda oo 10 baa dhinta dad dhan oo mujtamac ahaa oo dhul degnaa baa la soo barakiciyey oo magaalooyin degnaa baa la soo barakiciyey maanta qaxoonti ku ah Ceeldaahir iyo Boosaaso 7 baa kaaga dhimanaya afur iyo marajo iyo haddii la kuray galgala maxay kaaga dhimanayaan yaa difacdaa waa kuwan wiilashaadii lagu leenayo boosase iyagoo soomana hurdee cidaa difaacad ma jirto dee khadaan baa tahay ma jirtaan u difaaca dhulka maxamuud salmaan u difaaca inta kale iyagaa ma jirtaan ku dulmane adeer waxaan idin leeyahay furinta iskaga soo baxa galgala cidna difaaci maysaane adeer khaatimadiina ha ku seeginina galgalana iskaga soo baxa afururna iskaga soo baxa guryihiinni kala aada boosaasana waa la wada degan yahay ma jirtaan iyo dishiishe iyo warsingeli wada degan yahay ha yimaadeen shuyuukhdu marka cidda leenayso ha la ogaado garow ha tageen gaalkacyo ha tageen maxaa adiga furinta ku taagay ool ciidanka jooga galgala iyo afur oo warsingeli saraakiisha xukuntana ma jirtaan adeer xagee leedin ka haystaa waxaan idin leeyahay waxaan si fiican ula hadlayaa caawa beesha warsingeli gaar ahaan beesha aadan siciid baan la hadlayaa aadan siciid waxaan idin leeyahay xiniyuhu maaha inaad sanaab ku khalaaweysid iyo ceerga iyo baran xiniyo ku sheegatid wiilkii yaraa oo miskiinka ahaa ee nabadoonka ahaa ee ahaa ninka caaqilka ee miskiinka ahaa ee soomanaa wallaahi billaahi tallaahi maalinta ka horreysay Ceeldaahir bigala hadlayay nin dhibeedba maaha waa islaan waa suldaan ee maryaalastu dishay ee mooryaantu dishay ee ninka bilaana sabada ee harqaanlaha ee weliga aan ciidan arag wariyaa harqaan looha waxa loo xidhay waa la magacaabay waxa loo magacaabay taliye qaybeed bari gunti wiilal ku soo kaxaystay oo reer miyi ah oo aan digtoonada aqoon digtoonada sida loo bixiyo ma yaqaanaan buu boos ku soo daayay habeenii maalin dadka waa ku cadilaya waa ku leynaya hooyooyinka cashuurta laga qaado maalin walba hooyooyinka cashuurta laga qaado ba lagu duldurinaya ee lagu dul ciyaaraya maxay galabsadeen adeer gacli warsingeliyow cashuurta ugu badan ee boos ka soo baxda reerka laga qaadaa tahay ee degahaan ugu badan arigaagu baaladu daaqa buuraha budaaqa ceelaayo ma garatay magaalada marka saal looga baxo arigina baa daaqa caanaha iyo dhuxusha keentaan habeen iyo maalin wala idinku leynaya waxa aaminsantiin hadda dagaal gashaan dhamaanaysaan wallaahi billaahi tallaahi baan ku yiri waa dhamaanaysaan jirteena way dhamaynaya idinku aan dagaalamin jeelasha ka buuxsanaysaan suuqa la idinku leynaya walidin dawladeynaya garow waxa lagu cabayaa عصيرك يتفاح يا لبنيدا أدوكنا قلقلة دفاعيسا أفرول بدفاعيسا مينوينك أيجو سوشر قلقريان با لقول لنا يا بي اس اف بالقوس مستوى الشباب بشر لقى قادنا يا دبغي لقى شيء حنا يا أدوكنا وح لا لوح كل وقت متشفتو ما قرأت عبد الجمال بوسير وسير كحجان أمني لقى دقي وسير كحجان أمني
faamiligiisa buu ku dhamaadeen waa la dhameeyay wata nimanka mitirteen wasiirada iyo madaxweynayaasha nin caruurtiisa la leenayo ma artay nin walaalihi la leenayo ma artay ninka warsangeli ee galgala farageliyo dadkoisa waa la dhameeyaa mitirteenayna maalintii ay bilaabatay faragelin bay ku hayaan wali nin wasiiro walaalkii la dilay ama ganacsadahaado ama wax kala ha ahaade la dilay ma jiro nimankii maanta dhow dadka laayay ku tooween gurigiisa ka soo baxeen lama hadlin ku tooween barasaafka gobolka ba walaalkiisa lama hadlin ma garat cid ka hadashay oo warsangeliya haddii aad ilaahayba gacanta ku diri waayo way ka tijaman tahay af baa laga hadlaa waxa la hadin nimankan niyo hadda ma garat ruux dhala soo fariistay oo yiri xaqdar wiilka lagu dilay ma jirto waradeer see waxin ka yihiin waxaan idin leeyahay warsangeliyow inaad nimanka dhulka ugu guura inaad wada dhalateen uur ka soo wada baxdeen aad tirsiye siman tihiin ilma adeer tihiin baa dhul wada degtaan habeen iyo maalina tacaddi baa lagu hayaa sheekhaasha iyo eerada lagu leenayo bosso eeradu intay dhala fadhiisatay tiraahdo waxaana laga laayay waa kuwa suuqa ku gada dharka adiguna adoo bosso dega oo caanaha keena baadan habeen ka hadlayn caruurtaada la leenayo wariyaa roondada anu boosaan joogi jiray wariyaa roondada la qabto bosso jeelka baalade saldhiga dhexe saldhiga mid intaba warsangeliga la geliyaa war dadka kale dambi male miyaa iyo inta ku dhex nool wiiftadu qaato cali salaamanka ugu dhex nool ee wiiftadu qaato waradeer jeelasha bosso warsangeli baa loo sameeyay argagixisadan diriya daarood ku jiro galgala jooga warsangeli ba microscope ku qabtaa atan baan musaafirinay waa ka kaxayna wadankii waxaan ku niri qadar iskaad wali waa socota warsangeli sidii baa loo leenayaa xaafadda warsangeli marka soo galo xaafaddu qofkii rid furo ku dhigta habar ha ahaato ilma yar ha ahaato xaafadaha kalena Maria Calas baa joogto haddii la galo hadda xaafaddu Maria Calas kala kugu bilaabaysa adeer dadnimo kale ma lihidina ana idoo warsangeliyow dadnimo kale ma lihidina furinta baneeya bas iskaga soo baneeya galgala ya afur hal la isku soo galo bosso hal la isku arko shuyuukhda soo daaya arshaab ha timaado bosso maxaa adiga hanfiga kugu dilay maxaa adiga in boosaaso aad faacilidanta kugu jirta maxay tahay dekada ha qabsadeen oo walaalaha ha ka macaasheen galgalaha lagu noqdo maxaa furinta ku geeyay ila allaala cid difaacid ma jirto caruurtaada ma difaacid uurka boosa lagu laaya adigu buuraha joogta waa dagaalamaysa cid aad dagaalamaysid ma jirto wax ku wakiishay lama yaqaan wax baa tahay shaydaan bud dhigtay baa tahay ibliis baa ku bud dhigtay waxa madaan rumuud lagu maamulo maxamuud salaam baa rumuud kugu maamulo wariyaaga gudoomiyaha baarlamaanka baa wariyaha xabad laga soo saar garowe samsam layd jeebka ku jira kan gaaban hadir jooga dhoobadaareed baa yiri reerku waxa isku socon maayaan reerku waxa ka qorbi maayaan inta dhoobadaareed daba u istaag lahaydeen baad dabada u ruxday kan hadir jooga hadda ma garat warsangeli maalintaas oo ah dhoobadaareed wuxuu ahaa ninkii ciidanka Soomaaliland ku jiray ee beesha warsangeli soo leexiyay ee Puntland keenay hadda ma garat ciidankii hadir bilaa mushahara oo ciidan Mooriyaan loo keenay nin waliba xogaa ka aruursanayo adeer waxaan leeyahay dooba ku ceeboodin oo dhulkiiniba ku ceeboodin warsangeli oo dhan baa ku ceeboodin inta maatada ah ee masaakiinta baa adeer bahdisheen gabdhaheeni baa kaftamila dhalinyaradeenni baa kaftamila dhalinyarada warsangeli waxaan leeyahay ruux uqaala hortamalihin innagu wax uqaala hortamalihin adeer mooriyaan garooba كل واحد من الثاني موريان نقطة reerku markuu mooryaan yeesho baa wax ka qormaan nimanka mitirteena mooryaanta ay mari calasta ee marba ku soo xiranaya shaatiga ee ku dowladeynaya la mooryaan gareeya boosana ku soo daayay wiilasha
al-shabaab ee warsangeli buurta ku haystaan idinku ha ku baabiinina buurta xaqana inay ka soo jeesin inna xaqay ka jeedin bari meesha ugu qaalsanad galgalay ahayd galgalana wala maxaa difaacsan oo haray waxa difaacdaan ma hadhiniyo isugu soo galab soo daaya wadaadada soo daaya ilaahay ajri xasanaad ka siiyay boosaas keena hal isugu yimaado boosaso hadaba garatay iska daaya aad gacliye cidna difaac miisaane jin iyo shaydaan baa ila calmaday oo idin boqoraday iska kaalaya boosana hal isugu yimaado singeli waxaan leeyahay adeer gacliye inta xabxab nimankaas garoway qardo iyo boos ku cabilaayeen hal wada ololo mudul gubtay kama naxo baa leeyiri ma garatay dishishe iyo majeerteen waa isku mid waa isku dhinac ninka dishishe waxa laga dhaadhiciyay nimanka warsangeli waa magaalada ka qaadayna degma la siiyay saddexdii kale degme ee warsangeli saddexdii kale isbaan maxamuud cali salmaan cali jibril baa la siiyay hadda ma garatay cali salmaan koo isagaashkii soo galay warmina dhiig lahayn beesha dubays waxaan leeyahay wardubayso dhimasho kuma yara oo dayacidu kuma yara oo magaalooyinkiina bal idinka barakiciyo qaxoonti baa halka ku tiin adeer dhulkiina difaacda oo ku dhinta booso eldaar iyo dhar iyo booso qaxoonti ku tiin oo beerihiina idinka soo kiciyay marka saydan maanta difaac waxa ka haysan afur iyo galgala jin iyo meel aan leedin disan ba difaacaysan nacalaan caladiina disho ku yaale ruuxan bilaan nasabka maxay adeer gacaliye iskaga dareera boosano kuma yar adayga shuyuukhdu haday timaadana wala wada sameeyay ha ulashadee cidii cafinaysa cidii deensiyada taala hadii maxamuud salmaan iyo majartin difaac iyo galgalana oo al-shabaab iska difaacayna u sii daayay iyaga ku dhamaanay sidii 2009kii meedku istul saarmay sidii majiyaan ومدة لبعضه أنا سعيدو ويل خير مسكين كي اللي قد له بوساسو كد لين مري على عثمان محمود هذا الويل كوهيل يعني الله أرصدنا هذيك أنا ندري حدة دي نسمت هذين اللي أنا ورسنجل نتبه وقش يكيننا ويل كم مسكين كا وريال لقى ما تعسيرين حاجنا ثبتك سوق الشام كما إذا هالين قف كهالله شر لبقطي نبضون كهالله ويل خير مسكين كا برد اللي قد لي سيدي محمد كان منا waxa ay soo galiyay caaw ee mowduuca inaan ka hadlo soo galiyay ee live inaan ka hadlo soo galiyay waa Sidiq Maxamed Jaan booso waxaan leeyahay boosaasi dhibaatadaada wax badan baa laga dhisiigay hadaan la iswada darbaaxin hadaan Umar Dhabarka jeedin Ismaan Maxamuud Ismaanka hadaan la dhaansan Ciisaha soo dhawaab caleeyay hadaan dhigad laga la daalin hadaan Caliga isdhiibay eesha dhinaciisa gaadhin Cali Salmaan disha hadaan doofin waxa dhismayaal la taagay waxa bil la qalo dhoobay hadaan lagu kala dhaqaaqin dishiikaha ololka weyn iyo hadaan suu wada dhalaalin dhaxaan nabadii la diiday hadaan dhagta dhiig ku gaadhin hadaan dhaxalkaaga aaye dhabtii isaga lahay hadaan warsan dhitaysan nacala shadaan ku yaalay wala dhimanayaa galan nimanka niyo boosana adeer daantiina ku adeega ku fara adeega al-shabaabna soo galiya galgalana hanfigada ka kaalaya labadiin idinka iyo wiilasha shuyuukhdaaba isugu soo gala boos daantina adkaysta boosaasi ka bilaabatay ana galgala aan fi kugu dilaya oo maalin walba kabar qarax lagu galinayaa ku dhimanaysa wareen sabada taas kuma jirto nas sabada taas kuma jirto beesha warsangal waxaan leeyahay adeer gacli meel aan leedin dirsana difaacinina boos difaac tixra gabaygaana ka dhabeeya wallahi ugu horeeyay iguna dameeyay reer magaca warsangal haygu ceebeynina niyo nimanka maxamuud salmaan kalaaska naga dhaxaysa iga tiiriyaniyo aduun magac baa ka haray nimankeena wixii doonta haydu ku qortay waa bil rabadaan wiil yaro miskiin oo sooman baa lagu dilay booso Sidiq Maxamed Jaan manna ninkii garanaya wara la sheer gareeyo wixii warsangal iyo sheer gareeyo niyo cid kale ha sheer gareeyo warsangal iyo sheer gareeyo waxaas wadid barf baadaaya wallahi barf baadaaya waxaas waa caro waxaan isku la talinayaa dhalinyarada warsangeli adeer dhulka iska qaada maxamuud hartibaatiin
meel laydinka haysto garan maayo dadkii dadka maamuli jiraatiin malaha dee yaasiinkaa laydin xiray lugtaa ka xidhantiin baan u maliyaa waa filantiin adeer weligiin yaalihiin gunnimo kuma soo noolaan dadka xadaaradda soomaaliyeed baa tihiin dhulka xadaaraddu ka bilaabatay baa tihiin xilligii sayidka dadka qaadan waayey isticmaalkaa tihiin ingiriis ka qaadan waayey sidee xagee laydinka haystaa adduunyada mijaha loo rogay madaxu hooseeyey adduunyada nimaan muuqan jiri faan la mari waayey war adduunyadan ma jirteen warsangeli ku bacdhifleynaya ee ku tumanayo anu garan maayo meel laga haysto nimanka adeer waxaan idin leeyahay karaamadiina soo ceshta dad baa tihiin dul degan nasabiyad le carruurtiina in lagu laayo idinku difaaca kaga jira hanfi iyo kulayl carruurtiina in boosto lagu laayo idinkuna yaa difaacdaan war majin baa difaacdaan galgala ma difaacdaan oo galgalada dadkiiba ka guur indhahay xanuunaye cadhaawgeeda galgala ma difaacdaan oo galgalaba laga guur boosana waxa lagu yidhi waxba kuma lihid aadba ku lahaana carruurtaadina waa lagu laynayaa waryaa taliya qaybeedka ninba cismaan maxamuud ah gobolka bari inta ku lahaa waa goostay karkaar buu samaystay adigana boosaas kugu maamulaya caydiid axmed nuur baa ahaan jiray gobolka bari taliya qaybeed caydiid sidii looga qaaday cismaan maxamuud iyo cumar maxamuud jariiman iyo gaalkacyo ka yimi baa kugu maamulo kugu laaya jeelashi waa ka buuxdaa waraa jeelash halkaasaanu ka mari jirnay oo u hurda tegi jirnay intaa ugu gashidba warsangeli adeer inta al-shabaab wiilashaadiya xabad kugu dhufan lahaayeen xabad dowlaha kugu dhacdo ma jirteena oo meel loo raaco leh intaad buur ku dhiman lahayd boosto ku dhimo magac ku dhimo galgalay afrul ciidaa difaacdeed ma jirto ceeldaahir wataa cid doonayso ma jirto al-shabaab hadday doonayso oo xere warsangeli ay ku tahay lid may aado sanaag may badhan aado may cergaaba aado may dhahar aado xingalool may aado waa aragtay kala dhacda laamiga may aado maxamed yuusuf keliye waa ku salaamay suldaan waa ku salaamay sheergareeye niyo nalka norway marka adeer sidiiq maxamed jaamac xaqdaraa lagu dilay warsangeliyow aadan siciidow warsangeli isma sii saarna aadan siciidow adeer gacanta bilaaba waa laydinku tegayaa nimankeeda dhabayocu ma haynayso nacalaa shaydaan ku yaalla baranba markii qof laydinka dakro waa dagaalantaan iska daxabada markii qof laydinka dakro adeer waa dagaalantaan batolka xiniyo u leedihiin adeer dagaalama wiilkii nina u aara rabadaanta la dilay ee miskiinka ee soomanaa weligood adeer leef ma gelin si loo galaba ma aqaani iska daa wax kale xaqdarrada iyo dhibaatada haysata hay soo wicin maxaa yuusuf keliyo hay soo wicin niman baan karbaashayahay adeer waxaan idin leeyahay warsangeliyow aniga meesha iska qaadaniyo aniga meesha iska qaada oo ninka harqaanlaha ee ku soo booday taliyanimadana adeer gacaliya ka jawaaba ee wiilkiini dilay ee ka tacsiyadeyn waayey ee waxba ka oran waayey hor adeer waa la dhimanayaa dadkanina waa dhimanayaan wallaahi baan ninatiisa u dhaafayn axmed yuusuf abti sheergareeye cadhaa naga keentay waxane adeer waa la dhimanayaa warsangeliyow inaad galgalay afrud ku dhimataan oo ku dhammaataan boosana waxba kuma lihiin laydin dhaho oo waxaa idinkus dhigteen nimankaa ma jeerteen iyo awahay cabdullaahi suldaan baa sheegay hadduu magacu eegalmaysan wuxuu yidhi ma jeerteenow soomaalinimo isaaq baa idinka tegey daaroodnimona ma reexaan kabla laxna absama idinkaga tegey hartina waxaa idinkaga tegey dhulbahanti ilmaha bar ma jeerteenna warsangeli baa idinkaga tegey hadda ma garatay dhishisha uurka idiin galay waa ceejisaan baa idin hadhay marka adeer gacaliya awohen baa sheegay nimankaas inaan nasabad lahayn
in aad waana xanuunsadaan ma baqaan adoo ka dhulbaantay booso xamaal bay ka yihiin iyo waa yimaadaanoo laas caanood bay ka yimaadeen cid ku leynaysa miyaa aragtay iska daa wax kale kuwa ka yimaada buuhoodle ee dekada alaabta ka roga cid lama hadasho shakiib cali helo waa ku salaamay saaxiib cid la oraadeer gacaliyo warsingeliyo waxaan idin leeyahay dad nasaba ma tiidin nasabad ma lihidin dumarkiina in cashuurta laga qaado booso oo cashuurta laydinka qaado oo habeenkii guryaha loogu soo hooyadii maanta cashuurta laga qaaday caawan guriga loogu soo dhaco carruurtooda lagu laayo adeer waxa u keenteen gabdhihiinina waa kaftami laayihiin raggiinina waa annaguna waa sheekayn laanahay haddaanu caawa joogno waxbaanu ka qaban lahayn waxa dhacla shidaan ku yaaleen nimankaas ninka jawaab cad ha laga bixiyo nasabad ma lihidin waa ka hadli weydeen saxaafad baa kaga hadli weydeen waxa kaga hadli weydo dhowrka wiilo qurbaha jooga ee calacalaya adeer gacaliye ee social media ka calacalaya ka qaylinaya maaha wallahi aan qof kale uga hadlin habeenii maalin waa dhimanaysaan si xun baa u dhimataan darxumaa u dhimataan dadnimo darraa u dhimataan al-shabaab aan jirin mashruucyo guriga laga dhisto ee daqya laga jexdaa ku dhimataan cid allaale cidda difaacdaan ma jirto soomaaliya meel 70 qof 70 askari lagu dilo oo Soomaali ah koonfur baa ugu dagaal badan ma jirto 70 baa subax lagaaga dilay intii ma jirteen ka hadliyay iskaga baxa ba adiga 70 lagaaga dilay dhaawacuna lacad wala xisab 20 gaari lagaaga guday maxaa afur kaaga dhimanayeen dad oo kaaga boosna maalin walba xaafadaada loo soo dhacayo lagu laayo wiilash wariyaa bilaanta hawada cid lagu qabanayo maaragta bal xaafadaha kale ma jirto cid lagu qabanayo maaragta xaafadeena maxaa adeer gacaliya al-shabaab soo geliya waxay u soo cararaan dadka masaakiinta ee eelayda iyo shiiqaasha ee la laynayo xaafadda warsangeliga oo cararaa la dhahaa si aan qolada dhowr kale uga darsano iyagu waa dad lacag qaatay oo waa gadan yihiin leene radeer nisbad ma lihidin waxaan kula talinayaa niyo beeshu dubeys waxaan leeyahay adeer furinta iskaga soo baxaa ku jirtaan wax allaale waxa difaacdaan ma jiro cid aad difaacdaan ma jirto iskaga soo baxa furinta ka kaalaya dadkiina dhinac ka raaca afurur baydan cid ku difaacin galgalaydan cid ku difaacin sugurreedan cid ku difaacin buuraha soo dhambeed cid ku difaacin cid allaale cid aad difaacdaan ma jirto caruurtiina ba boos lagu leynaya yaa difaacdaan cid allaale cid aad difaacdaan ma jirto 70 ba kaaga dhimanay 50 ba kaaga dhimanay maalin walba miinadu 20 bay la kacdaa waxaas waa warsangeli yaa u difaacdaa cid aad difaacid ma jirto gobolka bari galbeedka saadegtaa adeer kuma yal adag adii al-shabaab taado iswata al-shabaab shaambadeeda laga ruguwaa atan baa masaafurisay laga ruguwaa inta buuraha ku haysan sooda boosaal isugu yimaado wallahi billahi tallahi nimanka futuxun ma jirteen iyo billahi tallahi inaan jirin oo ayna waxba isaga celineen oo 2009 2010 2011 baa qoyd galgala waxa ka raacay ilaa ciidanka dhiirantay Cabdi Jamaal la qoray wax allaale hanad abti waa ku salaamay 2010 baa ogeed 2009 baa ogeed 2011 baa ogeed galgala adeer gacaliye cid difaacda waa la waayay ilaa la yiri kaalay difaacda galgala yaa ka difaacanaysan tutusaneen abtuno baad galgala ka dagaalamaysan galgala baabada yaa difaacda ilaa ay haddana galgala difaacta ilaa ay haddana al-shabaab baa lagu leynaya ilaa ay hadda al-shabaab baa lagu leynaya jaana mana gurigiisa lagu dilay cid ka hadashay ma jirto al-shabaab baa loo dilay nin ordayo kala la soo galay waa la dilay cid ka hadashay ma jirto dilba oo maxume kama tacsiyadeen maxaa keenay inaan ka tacsiyadeen waxa keenay dadnimo darrada laga arkay nasabad darrada laga arkay inaan hadlayn baa laga arkay inaan wax walba kugu soconayaan baa laga arkay geed kasta oo lagu galiyo inay qaadanaysa laga arkay wax walba aboosta leedahay wax walba nacam baa leedahay wax walba waa okay baa leedahay or sida qaran jira lagu ma noqdo or dhalinyaradan la hadlaya or dhalinyaroy jiilkan waaweyn ee iskaraabka ee beeshinka adeer gacaliye waa tageen waana ku talagaleen nasabad darradan inay ku jiraan dhulka idinka oo hadhaya dhulka yaalna idinka qaadi dhulka sidan ku jira waa la idinka qaadaya bari dhow dhulka la idinku maamulo bay tagaysaa waa la idin maamulaya carruurtiina Soomaan baa la leenayaa
وريا دتك waa dhintaa ninka ajashiisu dhamaato waa dhimanaya waa baxay hadaa lama waran ninkaas cid ka hadashay ma jirto life kana ku siraago maro waxaan soo galay waa inta waxaan u rajeynayaa ilaahay idinkii Sidiiq Maxamed Jaamac in jannatu firdawsi ilaahay geeyo gacan ka xaq daran baa dishay bil rabadaan buu dhintay waxaan filayaa maalin jimcaha ah ahayd maalintu dhintay ilaahay qabriga ha u waasixiyo ummadda Soomaaliyeed iyo intii aan ku farxin dilkiisa kullu qoliyo ku farxay waa jiraanay oo istiraasanahay intii aan ku farxina waxaan leeyahay u soo duceeyo Sidiiq u soo duceeyo ilaahay inuu qabriga u waasixiyo Sidiiq maanta waa baxay oo inaga hooseeya laakiin kuwa badan oo ku daba jira waxaan la hadlayaa beesha Warsangeli waxaan leeyahay haddana dhulka iska qaadin oo idinku soconaysaa waana eedeysan tan waana dhimanaysaan waxba dhulka ku dhiganaanina si xun baana u wada dhimanaysaan si xun baa wallahi billahi wallahi u wada dhimanaysaan ilaahay baa iga sareeyay si xun baa u wada dhimanaysaan waxba naf jeclaysigan yeenan meel xun la gelin rag waa dhintaa habeen maalin wala dhimanaya nina ajashiisa ma dhaafo darxumadan iyo sheeko xuntan adeer iskaga baxa wax arti la dhahan jirin wax walaalo la dhahan jirin dadku waa Soomaali baa lagu wada hadlaa diin baa ka wada dhaxaysa kan boorama degan iyo kan jigjiga degan iyo kan booso degan iyo kan degan Kismaayo iyo kan Muqdisho degan baa Soomaali baa ka dhaxaysa nin walbana deegaan buu leeyahay nin walbana deegaankiisu wax ku yahay maanta deegaankaaga hadaa weydid dhulbaxantana tuur ku ridan maayo bijartana tuur ku ridan maayo tumaal baa noqonaysaa adeer dhulkaaga wax ku tahay dhulkaaga difaaco Sidiiqna waxaan leeyahay aan Siciidow adeer dib waxaan u maleeyaa sida baran looga dagaalamo taqaanaan maxaa Cabdirsaaq Suldaan waa ku salaamay sida baran looga dagaalamo taqaanaa waxaan u maleeyaa bahashin ma dhaafto baran ninka miskiinka bisha Ramadaan la dilay ninka harqaanlaha ee Maryaalasta dilay aan waligii ciidan arag iyo Maryaalasta uu wato ee Mooryaanta habeenkii mobilada furta adeer wiilka kaliya ma ahay dhibta oo islaamaha masaakiinta dadka Soomaaliyeed boos jooga ay ku hayaan maalin walba dadka suuqa ku garaacayaan cid ka hadashay ma jirto si gaar ah waxa la hadlaya dadka gobolka bari dega ee godkooda biyo ugu galeen ee cashuurtooda lagu biilo garowe iyo gaalkacyo ilaamiyada lagu sameeyo garowe gaalkacyo iyagana caruurtooda lagu leeniyo boosaaso ee furimaha la geeyay ee galgala al-shabaab qayb ku leenayso qaybina ay ku leenayso boosaaso yaad boosaaso ka difaacdaan wadinka galgala ku dhamaaday ilaa la ka difaacdaan ma jirto inkaar ay haysto meel ay ka haysatona ilaahay baa yaqaana marka waxaan leeyahay adeer Warsangeliyo gabdhihiin baa adeer kaftamin la maalin walba wiil yar ku soo boota oo harqaan laga keenay oo xidig lagu taxayo aan protocol waxba ka aqoon baa caruurtiina leynaya wariya balintay dilaan meedkiisa qaateen bay meedkiisa ka dul khudbadeeyeen oo aan oran ninkaasaan nagu dhintay oo waa ka tacsiideena ayna hooyooyinkii samir iyo iimaan Allah ka siiyaan oran waxay noqon maxay taas ku muujinaysaa waa dabadarrada laga arkay reerka adiguna tuuta kugu uray galgala hoganaysa tuuta kugu uray marka saadka soo doonatidna toban baa dhinta oo miinadu la kacda marka sii socotidna toban baa dhinta oo miinadu la kacda maxaa ku dhimataa kan xagga miinadu la madaafiicu ku dhacday leedana waa adiga boosan caruurtaada waa lagu leenayaa yaa difaacda al-shabaabada haday cid u baahantay sanaag ma cirgaaba aado ma xiro Warsangeli aado cirgaaba aado ma baran aado ma dhahar aado ma aari sodee garowe gaalkacyo iyo qardha ka hortaagan tahay maxaa adiga ka hortaagay maxaa soo difaacanaysa wax allaale wax u difaacanaysa ma jirto wax ilaahay mufrada ka qaaday baa tahay oo ilaahay jaashilin loo soo aansax ilaahay karaamadii uu ka qaaday cid allaale cid difaacid ma jirto nimankaas ilaahay burku ugu dhiftay adeer nimanka dhulbaanta waa ka tageen customkii tukaraq baa ugu dambeeyay waa ka qaateen habeen guri kama gubin dhulbaanta leeyahay
وقريها يبي شنو دفاع عسى ورسنقلي ودنا بدرada waliga cid uma aan shaqeyn qaabka meesha laga haysto iyo karaama darrada ku haysata inaadaro maxay tahay nacaladi kugu dhacday kuma oran karo war rabadaane arina meesha iska qaada warwaayelku nabi male nasabadna male dhalinyarada warskali waxaan kula talinayaa marka jaanamana aan aadar loo aaro dhalinyarada warskali baan la hadlayaa hanfigu ku laayay meel walba ku laayay galgala ku laayay afur ku laayay marajo ku laayay iskaga kaalayaan ku laayay marajo iyo afur iyo galgala iskaga kaalay boos kaalaya wadaadadana soo galiya boosaaso cidda ka gubanayso booso marka hal arko cidda ka gubanayso booso marka hal arko adeer intaasaan soo galay waxaan leeyahay ninka loo duceeyay Sidiiq Maxamed Jaamac Jaanamana walaalkeenu ahaa nin wanaagsan baa garabkeeni midug oo baxay buu ahaa ilaahay ha u naxariisto si gaar ah aniga waa nin ii taabanaya aniga rag badan oo kale halkaan ka arko ilaa qabriga hawa waasiyo faatixadana uu soo marayna bil rabadaan gacan ka xaq daran baa dishay insha Allah isna kama dameynayo hadii alla idmo beesha warsagalina waxaan leeyahay adeer tashta nasamatiidina tashta hadii kana sida hal idinku awrkacsado dee وانا سلام يا اد باوي محسنتي